fake news ma faantay askartaan oo dhan arkaysiin military xitaa ay imaadeen 500 wallahi way ka badan tahay kun amal waaye gaariyaashan hubkooda baa ku jiro labadaas gaari hubka baa ku jiro gaariga xitaa hub baa ku jiro waxa la dhihi jiray nin oo cad Soomaali ah baa meesha ku jiro oo maxaa la dhihi jiray gabadhiisa yar buu dilay ma faanteen marka oo waceesla waaye abgaal waaye ma faanteen habartiina wuu ceejiyay marka ma dhimano meesha ku jirta ilbaabka inuu furo diidaya askarta dhanna waa arkoosi ma fahmino marka guys saas waa u ogaada wax walba ay soo duwaya hadana waxa la jibin rabaa bahalka ilbaabka xabsi ma la dhigaayo waa la dilayaa xabada baa lagu tirnaya saddex qof muu dilin waa saddex qof uu dilay ba meedka waxa dhintay laba qof baa dhintay askarina waa dhaawac hadda waxaan soo xasuustay wallahi beenku idin sheegi maayo maanta markaa meesha tagay waxaan soo xasuustay walaalkeyga ana xabsiyo ku jira waxa dhacday walaalkeyga gurigeena markaas anigu waa maqnaa laakiin si gadaal baa ka imaan doonaa wallahi waa isku ooyaday because ilaa hadda walaalkeyga soo xasuusanay walaalkeyga xabsiyo ku jira prison ku jira wuxuuna sameeyay military macan booliis ha imaatay kuwaan inta taagan ma ahane maxaa la dhihi jiray 500 oo kale dhanka kala joogta ma faanteen askartii Mareykanka nin Soomaali oo waceesla iyo naag cadaan iyo ilmi cunug baa la dilay naagtiis cadaanta girlfriendtiis cadaanta bay isdagaaleen qoriyo soo qaatay iyadoo ku dhufan rabay qorigii wuxuu dhaxmooday darbigu dhaxmooday so saas ee tahay ku dhufanin waxba ma gaarin gabadha saas ee tahay askartii waraadinaysay asagoo guriga markaas uu ka tagay then after that walaalkeyga maalinta ku xigtuu soo laabtay maalinta ku xigtana askarta guriga imaatay gurigeyga asagii raadinaysay waraaqadihii soo qaateen ilbaabka la soo qaraacay aniga waayaan dhahay waxay dhaheen askarta police department waaye markaasay dhaheen ilbaabka for open the door if you guys don't open the door we're gonna break in and ilbaabka da furi wayso waan soo jubinayna because waraaqadahana waan wadanaa ugu dhaheen so I told my brother waan ogaanay walaalkay wax qaldan inuu sameeyo waan ogaa inuu xabad riday waan ogaa gabadhaas inuu dil like everything waan ogaa because uu ii sheegay you know so once they say that I said ilbaabka waan furaya he said abayo ha furan but asaga like and Horan Hapsu Ugalgalay, but like you know how he knows how jail feels like or prison how it feels like. So I said, no, this is my house. I have to let you go. Wallahi, that's what I said. So I said he's right here. What because you know how Americans are, you know. Why can I what about sorry, I don't want to naxsanahay like oh my god. la dilo saddex qof buu dilay saddex qof muu dilin waa saddex qof uu dilay ba meedka waxa dhintay laba qof baa dhintay askarina waa dhaawac